Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada dhammaan saaxiibayaal. Muuqaalka maanta waxaan rabaa inaan ugu jawaabo su'aasha ah sideen ugu cadaysan karaa ilkahayga markaan xiranahay biraha ilkaha. Markaad xiran tahay biraha ilkaha waxa uu cadaysan kartaa qaab noocan ah. Marka ugu horeyso waxa u baahan tahay number 1 inaad isticmaashid brushka lagu cadaysto ilkaha, gaar ahaan nooca loo yaqaan soft brush. Marka ma ahan inaad isticmaashid cadayga caadiga ah ee loo yaqaan caday Soomaaliga. Marka waa muhiim inaad isticmaashid brushka ilkaha lagu cadaysto gaar ahaan nooca loo yaqaan soft brushka oo la micno ah nooca jilicsan. Sidoo kale waxaa muhiim ah markaad ilkaha cadaysanaysid waa inaad ilkaha u cadaysatid qaab wareeg ah ama circular motion. Marka waa inaad u cadaysatid qaab sidan oo kale ah. Si aad muuqaalka ugu jeedidbo circular motion-ka waa qaab sidan oo kale ah. sidoo kale waxaa muhiim ah markaad ilkaha cadaysanaysid waa inaad u cadaysatid xagal 45 degree ah ama 45 degree ah. Si aad muuqaalka ugu jeedidbo xagasha 45 degree-ga waa sidan oo kale ah. waa inuu brushkaaga uu si toosan ugu beegan yahay birta ilkaha. sidoo kale waa inaad isticmaashid wax loo yaqaan interdental brush ama proxy brush oo ah brush loogu talagalay in lagu nadiifiyo ilkaha dhexdooda. Brushkan wuxuu gaar u yahay dadka biraha xiran ama dadka braces-ka xiran. Interdental brush-ka qaab noocan ah ayaa u isticmaali kartaa. Marka hore waxaa ka soo bilowaysaa qaybta hoose, kadibna waxa u wadaysaa ilaa qaybta sare. Interdental brush-ka ama wax loo yaqaan proxy brush-ka wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee loo baahan yahay markaad nadiifinaysid ilkahaaga. Gaar ahaan waxaa la hadlayaa dadka biraha ilkaha xiran. ugu dambeyn waa inaad isticmaashid wax loo yaqaan flossing oo ah dunta loogu talagalay in lagu nadiifiyo ilkaha dhexdooda. Dunta ilkaha lagu nadiifiyo ama flossing-ka qaab sidan oo kale ayaa u nadiifin kartaa ilkahaaga. Waxaan rajaynayaa hadda inaad fahantay qaabka saxan ee loo nadiifiyo ilkaha gaar ahaan dadka biraha xiran. Anigoo kaaga mahadcelinahay daawashadaada muuqaalkan. waxaan rajaynayaa in muuqaalkan wax un ka faa'iiday. Ha iloobin inaad muuqaalka like saarto, sidoo kale aad la wadaagtid saaxiibka biraha xiran si uu asigan ugu faa'iideysto. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.